waxaad soo qaadayseen waraysiyo waxa laga yaabaa marar badan xaalado badan oo adag baad ka soo shaqayseen maalin dhexdaas waxaa xasuustaydaan xasuusanahay cabdisalaan oo waraysanaya nin burcadbadeed ah oo ay isla rafaadsan yihiin oo leeyahay maxaad iigu cadaynaysaa inaad tahay cabdisalaan Hereri su'aashaasna in badan ay isku celcelinayaan marka waxaan doonayaa inaan labadooda weydiiyo bal mid walba maalintii ugu adkayd ama waraysigii ugu xasuusta badnaa ee intii uu saxaafadda ku soo jiray uu qaaday inuu caawayna la wadaago waxaan u malaynayaa su'aasha ugu horreysay waxay tii Xamse horta Xamse marka qofku mihnada ku soo jira muddo dheer sida Siciid sheegay inkastoo aanan 30 sanadood iyo waxa uu sheegayaan aanu ka warhaynin waxaad la mid noqonaysaa fanaan la yidhi imisa soo dabqaaday oo kale oo dee muddo dheerna ku soo jiray marka inta badan horta dadka xusuusta laakiin waxaan jeclahay midaad adiga qudhaadu soo qaaday oo ahayd tii ninka burcadbadeed oo dad fara badan maanta telefoonka ugu jirta siday ku timi inaan wax ka taabto waxay ahayd qoladii markabka laga afduubay oo Soomaali ahayd oo Imaaraadka joogtaan la hadlay dabadeedna waxay siiyeen telefoonka ninku uu sito burcadbadeed hogaaminay marka ma filaysid intuu markab afduubay dabadeedna dad iyo xoolaba u haysta madax furasho inaad sidii qof xafiis fadhiyo caadi ah tiraahdo waraysi baan ka rabaayo arrimahaas kala hadlaya deedna ku yeesho daqiiqo kadib igu soo celi marka isagu waxa la yaalay wuxuu yiraahdo waa dabadeedna stuudiyaha tago waan iska sii shito marka waa sheekadiina dhex martay min bilow ilaa dhamaad ayuu waraysigan ahaa waan xusuustaa ilaa 10 daqiiqadood baa la sii daayay waxba lagama gooyin marka dambe dawaataanu dhabaha isku soo dhacayna oo iska ogolaanayo taasi inta badan kuma jirto marka lagu sheegay dadka waraysiyada loo diyaariyo oo qofku waa inaad u sheegto waxaad ka waraysanayso inta daqiiqo uu noqonayo iyo goorta la sii deynayo waxaan xusuustaa 2012 anigoo Muqdisho jooga oo shaqo u tagay oo jooga meel aanu ku cashaynayno dadku ku badnaa ayaa telefoon ii soo dhacay taateedii oo kale ay ku dhacdo waliba tayada ka fariisanay wuxuu yidhi waa radio dalsano hawada toos bay ugu jirtaa halka naga dhageysanaysaa marka telefoonkii qabtay markaasuu yidhi waxa magaalada yimi Cabdiwariye Cabdisalaan Hereri oo imka si toos ugu jira telefoonka mana oran kartid igu soo celi oo wixiina waa live ba anshaxnada meel ay kaga jirtaa markay waliba live tahay ma jirto inaad qof inta wacdo tiraahdo hawada toos halka naga dhageysanaysaa waa radioga oo dadna dabada u qabato halkii dadku ku cashaynayeen baan deednay si dabada istaag markaas dabadii markaan istaagin waxay igu sii daray qarar baad codkaaga dabada laga faqlaa markaas ana darka gaabsaday 20 daqiiqo ninkii waday oo deemana oran kartid iga goomoogtay oo wixii waa live marka ilaa isagu inta daalayay ee uu dhameysanayo waan wadnay taasi waxay ahayd aniga laga qaaday laakiin kuwa kale runtii mid waliba abada marxaladeeda lahayd laakiin waxyaalaha inta badan la xusuusto waxa kamid ah hogaamiyaasha oo kale imika kii ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia ka qaaday February buu ahaa wadanka aynu jaarkana ama wadamada Afrikaanka badankooda waa qiyaasi karaysaan sida aan loogu furfurnayn saxaafadda dabadeedna adigoo taa ka war haya haddana waxaad ku khasban tahay ilaa dad baad waxaan ka iibinaysaa oo soo bandhigaysaa dadkii cawsle la muuseeyay uma geynaysid moogta waa in haddana wixii meesha yaalay waata Soomaalidu taa ilaahow aqoon darrana nagu cadaabin ee xanaha nagaga tagi wixiina waa inaad wada weydiisaa haddana waa inaad u yar dhooftaa moogta oo xitaa waliba markay muuqaal tahay waxa raacaya waxa la yiraahdaa body language oo ninka hogaamiyay haddii hore kuugu soo fariisto
way ku jirtaana techniqueska isticmaalaan dabadeedna intii kale soo wadatay baa kaa kala firdhaysa oo body language qudhiisa ku jira marka waxaan jeclahay balinta kale inaan odayaasha u dhaafo